waxaan halkan hambalyo uga diray iyadana walaashay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo hanuuniyey hawshii ay ku jirtay oo ahayd xamdi kuweyn fanaanadii xamdi kuweyn dadkii barigii aan hargeysa tagay igu soo dhaweeyay bay ka mid ahayd runtii waa gabar walaashaya xamdi waxaan u rajeynayaa insha allahu tacaala iyadoo dhalinyaro ah oo gabar ah inay insha allahu tacaala ay hawshaas kaga baxday ilaahay dartiisna ay uga baxday cid ka saaftay iyo cid maaragtay hawsha aanay shaqo macnaha ku lahayn laakiin iyadu ay iskaratay wax kan inay adduunyo tahay oo laga tagayo ilaahayna wuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala addoonku markuu shaab yahay oo dhalinyaro yahay oo maaragtay waqtigu cibaadaysan karayo waqtigu wax qabsan karayo inuu waqtigaa u soo noqdo goor xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen way ka fiican tahay waqtigaas waayo walaalayaal qofku waa bini aadam wa kullu ibnu aadam khata' wa khayru khata'una al-tawwab ibnu aadam ko dhan wuu qaldamaya laakiin waxa ugu fiican qofka ka soo noqda qaladkiisa rasuulku sallallahu alayhi wasallam saasuu yiri marka walaalayaal waxa weeye inagoo dhan baa qaladna ka dhacay inagoo dhan baa qalad galayna gafaaf baynu galaynaa gafaaf joogaynu nahay wax ma garanaysaa haba yaraatee dhammaystiran ma jiraan laakiin gafaafkaynu galayna inagu haddaynu nahay dadkii walaalayaal hawshaa ku jiray inagu cidna ma dari jirin waxyaabo cidnana ma inaan dhici jirin waxyaabo dambiyo kalena ma inaan gari jirin laakiin walaalayaal waxaan u darayn nafteenaynu u darayn nafteenana waa u darayn ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ina ka reebay baynu diidnay ya rabbi baynu ku caasinay halkaasaynu caasi kaga jiray laakiin wax ma garanaysaa kale oo aynu samaynaynay ma jirto qofku marka walaalayaal hadduu iskarto oo hawshaa ka soo baxo oo waqtigaa maaragtay isdaba qabto wax ka fiican walaalayaal ma jiro ya haddaad meeshaan nimcadaan ku haysanno qofku intuu meel tago fadhi ku dir waxaan xusuustaa dubay baan joogi jiray waxaan xusuustaa annagoo meel intaan fariisanno fadhi ku dir maanta dhan maalaa yacni baan joognaa meel siisad baa lagu cabaayaa meel bahalkii baa lagu samaynayaa ama kalaab baa laga yaabaa inaad tagto qof baad maalmo ku imaanaya wuxuu ku leeyahay kalaab filan baynu tagnaa maya kalaab filan baynu tagaynaa kalaabkaasaa tagaysaan caawa dhan madaxaabaa ku xanuunaya adigoo madaxu ku xanuunayo baad ka imaanaysa ma garata haddiiba habeenkaas kaleeto aadan cabdidhaanto soo dhow walaal cabdidhaantow adiguna dee walaal hawsha iska daayo ilaahay ka boqo ka toobadkeen hawsha ya cabdidhaantow magaaladaad joogtaa xamar waa kula joogaa dhaantada jooji ilaahay ka baqsaa waa la dhimanayaa adduunyadan waa laga tegayaa cabdidhaanto weligaa iyo allaha dhaanta ku jiri mayso wallaahi billaahi inaadan dhaanta ku jirin kowdhe khayrkan kula jecla waaw ii imow wallaahi ii imow meeshaan joogo waa taqaanaa gaari baa soo kaxaysan kartaa amba gaari baan watay oo meel kasta ku imaanay xataa maalin iima aanan jeedin adigu waxaan kugu arkay madaxtooyada dhinaceeda gaari baan watay anna gaari baan watay kow marka waxaan ba ka baqay inay tiraahdo inaad ma garanaysaa marka saaxiib ii imow ilaah baan kugu dhaariyay ii imow cabdidhaanto oo meeshaan joogo waad garanaysaa ii imow halkaa igu imow wanaa kugu soo dhaweynaya oo kaalay diintaada baro oo iska daa ma garanaysaa waxaan iyo qurunkan iyo maaragtay dhaantooyinkan iyo balaayadan iyo hawshaas ma garanaysaa iyada aynu isla garanayn waxaasoo dhan ka bax ilaahay darteena uga bax dhallinyaraa tahay waa shaqaysan kartaa wax kalaa ilaahay kugu bedeli karaa ma garatay wax ka fiican baad heli kartaa oo ilaahay ku siin karaa ya wallaahi buusan ilaahay kuu hoojinayn maasha allah cabdiyow ballan waay inaad timaado aad iyo thank you saaxiib waad mahadsan tahay waan kaa filayay inaad tahay qof khayrka jecel wallaahi inaad khayrka jeceshahay markhaanti baan kaaga ahay kow marka walaal ii imow wallaahi ii imow meeshaasaan joogaa markiisa sunna ceelasha markaad joogto waxaad ka soo aadaysaa xagga baa ka soo aadaysaa waxaad ka soo aadaysaa dhinaca qorax ka soo baxa markiisa sunna ay tilmaamaa leedahay gaarigaaga adoo socdaa ku imaanaysa ya halkaas
baad arkaysaa anigoo ninkii odaga ahaayo halka masaajidkaas safka hore iska fadhiyo iska cibaadaysanaya khayrkiisa iskaga jira ma garatay wiilal yar yar oo dhalinyaro ah oo xufaad ah baan la wada joogaayo ma sha Allah iyaga anada marba waa kaas haye ma garatay xir marka walaal ilaahay baan kugu dhaariyay waxana waxa weeye waadna maqashay walaasheen xamdi ku weyn iyadana waxa way iska ilana soo hadal ila soo xiriir telefonkayga si gaar ah kuugu qoraya ma garatay insha Allah ta'ala ila soo xiriir ama hadhow luuqaaga ii soo dhib telefonkaaga ana ku soo wacaya ma garatay marka walaal dhamaanteen aynu khayrka isla jeclaano khayr baadin hay marka walaal anigu sidii baa taaganahay waxaan u jeeday adaragii baashayna ka horeeyay waad aragtay Cabdi Dhaanto waxba kama keenin ilaahay baan kugu dhaariyay waad aragtay maalin dhoweyd waxaan u jeeday rag baan u jeeday maalin dhoweyd waxaan arkay ilaahay iyagana waxaan ka rajaynayaa inuu soo hanuuniyo rabbi subhanahu wa ta'ala hanuun baan la jeclaa waxaan arkay cigaal Ahmed Ali cigaal oo ka tubaya London waxaan arkay salaad Maxamed Sharti darbi oo tiyaatarkii lagu wareysanay wallahi walaalahay khayrka la jeclaa wallahi khayrka la jeclaa waxaan jeclahay inay soo hanuunaan maanta waa 8 jiro ilaahay wax ka rajaynayaa walaalayaal inuu hanuuniyo oo wadada toosan saxda baro oo maaragtay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo hanuuniyo baan ilaahay uga rajaynayaa waana u ducayn jiray ya wali qofku waxa weeye inaad hawshaada ku adkaysato oo aad ku adkaysato waa laga fiicay waa inaad ogaataa in adduunyada adigoo jooga adduunyada lagu cadaabaya wax kale iska taa wallahi qofka adduunyada lagu cadaabaya ya ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة الأعمى إلهي باير سبحانه وتعالى يا قفك ذكرك كجسته رب سبحانه وتعالى وحجر قفك ذكرك كجسته يا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة الأعمى يا مركه وحوي ولا ريال إلهي أنت خبغلا توبت كان وربي وتوبت كان ما أنت جالس ما هي ستاني توبت كان ولا ريال وحويان أنت وقتي أن نكرد عن سوى سبع وكان نقضى هوش عيدا أنا هو كان نقضي ربي بان سدي مرة سدي مرة واسدي ولي هوش اللي بكتير أنا معادي بكتير إلهي لما أنت بولا لي حي نوسي هذه مركولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.